kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka janalkana qodobada aan kugu heynaa waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo magacaabay shakhsigii markaasi hogaamin lahaa booliiska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo ka geeriyooday Allah u naxariistay Farxaan Qaroole booskiisii shakhsigii hore aan ku wadaagnay warbixintiisa iyo taariikhdiisa ee ahaa taliyihii Nise Galmudug oo loo magacaabay xilkaas haddaba waxaan soo gudbin doonaa waxa uu ka bedeli karo amni ahaan ma u qalmaa booska taliya Farxaan Qaroole inuu buuxiyo shakhsiga loo magacaabay taliyaha booliiska gobolka Banaadir maxay isku ahaayeen mahasalaad oo kaalin muuqata ka qaatay in la magacaabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo la taliyihiisa dhanka arrimaha dibaddana waxa ay soo dhaweeyeen magacaabista waa daawo doontaan saaxiibayaal sida ay dadka ugu falceliyeen iyo shakhsigan dadka qofka uu yahay iyo wax uu qaban karo falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa waxaa kaloo daawo doontaan haweenka dowladda federaalka ka tirsan oo ay hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka wasiirka haweenka Khadiija Diiriye ayaa maanta gaaray magaalada Buulaburti ee gobolka Hiiraan waxaana ku weeliya wasiirka macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed dhinacyada ayagoo ku lubeysan tuutahooda iyo dareeska ciidamada militariga Soomaaliya iyo booliiskaba ayay gaareen magaaladaasi warbaahinta ayay la hadleen waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab halkaasi geero badan ayay geeyeen si ay dhiirigelin ugu noqdaan macawisleyda iyo ciidamada xoogga dalka qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin ayaa laga helayaa qarax lagu dilay gudoomiyihii degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose war la yaab leh ayay al-shabaab ka soo saareen dilka haddaba waa soo gudbin doonaa oo waa daawo doontaan qodobadaas ay ku faahfaahin doonaa wararka kale caalamka diblomaasiyadda fadlan haddii aad noqoto subscribe noo soo gambalelkana furo una sii share gareeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinka commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin had iyo jeer sida aad nala socotaan oo aad nala jaan qaadaysaan aan ku bilaawno taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaa ayaa maanta waxa uu magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Jenaraal Farxaan Qaroole xilka uu baneeyay isagoo markaas u magacaabay shakhsigii falanqeyntiisa iyo warbixinadiisa horay halkan kugu soo gudbinay ee lagu magacaabo Macalin Mahdi waxa uu hore u ahaa taliyihii Nisa ee maamulka gobolka Mudug taliyaha cusub ayaa loo magacaabay Colonel Mahdi Cumar Muumin oo ahaa taliyaha nabad sugidda Nisa ee Galmudug isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay hay'adda Nisa gaashaana sare Mahdi Cumar Muumin ayaana bedelaya taliyihii hore ee Jenaraal Farxaan Qaroole oo 3 September lagu dilay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha cusub ayaa waqtigiisa inta badan ku qaatay hay'adda Nisa waxaana aad u yar khibradiisa booliiska wuxuuna mar noqday taliyaha arrimaha bulshada hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee Nisa Macalin Mahdi shakhsiga ay wateen mahasalaad Abshir Buqaari oo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo mahasalaad oo ah taliyaha Nisa ayaa muruq iyo maalba iskugu geeyay sidii shakhsigan loo magacaabi lahaa inuu noqdo taliyaha booliiska guud ee qaybta gobolka Banaadir oo markaas xilkaas hore u hayay Allah u naxariistay mujaahidkii weynaa Jenaraal Farxaan Qaroole oo al-shabaab ay Basra ay ku dileena haddaba shakhsigan ayaa la sheegay inuu yahay shakhsi afgaaban oo aan wax dhaqdhaqaaq badan aan ka sameyn karin shaqooyinka loo igmaday sida Nisa iyo hadda xilkan loo magacaabay booliiska gobolka Banaadir dadka ku dhow waxa ay tilmaameen inuu yahay shakhsi markaasi aad u culus dhaawacyo kala duwan qaba qaarkoodna ku sheegay inuu yahay nin markaasi aan ka bixi karin howlgaladii uu qaban jiray iyo shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee uu qaban jiray Jenaraal Farxaan Qaroole Allah u naxariistay tani demuudiyad waxay ugu dhigan tahay ayaa leeyahay bartilmaameed ah in aysan shakhsiga xilkaaye aysan mudnaanta siin balse markuu dhintay kadibna ay bumbuunayaan si taliyihii hore ee markaasi qaybta guud ee gobolka Banaadir Jenaraal Farxaan iminka taliyaha lagu bedelana ayaa ah mid markaasi dhinacyadu iska kaashadeena dhinaca kale wararka degdeg aan helnay waxa ay sheegayaan degmada Qoryoole anagoo qodobo ka noo soo socday gudoomiyihii degmadaas ayaa lagu dilay qarax gaarigiisa lagu xiray oo miina al-shabaab war la yaab leh ay ka soo saareen wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in qarax miino lagu dilay gudoomiyihii degmada Qoryoole Sayid Ali Ibrahim qarax oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa la beegsaday gaari uu la socday gudoomiyaha degmada Qoryoole xilli uu marayay duleedka degmadaasi waxaana goobta ku geeriyooday isaga iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa qoraal ka soo baxay madaxweynaha koonfur galbeed lafta garan ayaa tacsiil loogu diray gudoomiyaha degmadaasi waxaana al-shabaab lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka gudoomiyaha madaxweyne lafta garan ayaa tacsiil u diray qoyska iyo qaraabada dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay Allah u naxariistay gudoomiyihii Qoryoole oo ku geeriyooday qarax ay argagixisada ugu xireen baleeri gaarigiisa ayuu yiri madaxweynaha Cabdicasiis lafta garan laftagan ayaa sheegay in al-shabaab mar waliba ay bartilmaameed yihiin howldoorada u adeegaya bulshada iyo qaranka Soomaaliyeed isagoo xusay
in marxuumka uu muddo dheer usoo adeegay qaranka laguna xasuusto doorkii uu ku lahaa nabadeynta bulshada degmada Qoryooley iyo sida ay ugu gooneed inuu markaas u adeego shacabka Soomaaliyeed. hase yeeshee waxaa ka yaabinaya dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo arrintaas war la yaab leh ka soo saaray dilka gudoomiyihii degmadaasi Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ayaana war la yaab leh ka soo saaray barahooda ay ku baahiyaan internetka ayay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaas ayagoona sheegay inay dileen nin markaas ay ku sheegay inuu ahaa gudoomiyihii Qoryooley waxaana ugu yeeray markaas inuu ahaa in markaasi la doondoonayay oo in badan dadka xarakada ka mid ah ay siyaabooyin kala duwan ay u dhaqmeen waxaana ku jiray bayreen liiska horey shakhsiyaadka loo doonayay. qaybihii dhexe ayaa daawanaysa janalkeena daawadan haddii aad nagu subscribe noo soo gabalkan afar una sii share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinku commentiga like-gan inoo ribaya aad baad u mahadsantihiin. markaana wafdi ay hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Saacadiin Salaad Samatar ayna qayb ka yihiin wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirka haweenka Khadija Diiriye, xildhibaan Xasan Nuur, xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku labisan tuutaha ciidamada militariga ayaa maanta gaaray magaalada Buulaburte. wafdiga garoonka waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka mid ah Maxamed Ibraahim Macalimo, saraakiil ciidan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada gaaray degmada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in qaybgalka dagaalka loogu saarayo al-shabaab isla markaana ay tegayaan furimaha dagaalka sida haweenka oo sheegeena. waxay sheegeen in al-shabaab ay yihiin kuwa dhibaato ku haya dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in meel loogu soo wada jeesto si dalka loogu saaro bay yiraahdeen. wafdiga waxaa lagu wadaa inay tagaan furimaha dagaalka ka socdaan kuwaas oo u dhexeeya ciidanka dowladda, dadka deegaanka macuusuleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab. dhankan waxaa lagu wadaa inay la kulmaan saraakiisha hogaaminta dagaalka ka dhanka al-shabaab iyagoo markaas sidoo kale booqan doona deegaanada lagala wareegay al-shabaab sida ay usoo wareystaan dadka ku sugan deegaankaas. waxaana gobolka Hiiraan ka socda kacdoonkii ugu weynaa ee beesha xabaadle ay ku diidan tahay dhaqdhaqaaq kasta oo al-shabaab halkaas ay ka samayn karaan iyagoona haatan jab culus lagu gaarsiiyey dhibaatada ugu weyn ay kala kulmaan dagaalamayaasha al-shabaab beesha xabaadle. waana taariikh ay ka sheekeyn doonaan sida markaas dagaalka al-shabaab loogu hayana yihiin kii ugu cuslaa tan iyo markii kacdoonka oo bilaabay. hase yeeshee waxaase dhinaca kale weli ugu soo wadaa beelaha Abgaal oo markaasi Shabeellaha Dhexe aan weli gulufka colaadda aan ka bilaabin eegota bedelkeeda ugu sabir gawaarida ay soo bandhigaan iyadoo tuusada kalena ay halkoodii kasii wadaan. weli waxaa daawanaysaan wararkeena arrimaha caalamka iyo Soomaaliya iyo diblomaasiyadda ee janalkeena daawadayaal. haddii aad nagu subscribe noo soo gambalkan afuro una sii share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga like noo ribaya aad baad u mahadsantihiin. markaana gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ Marwo John Donoghuwa. gudoomiyaha waxaa xarunta maxkamadda cadaaladda ICJ ku soo dhaweeyay madaxweynaha maxkamadda Marwo John Donoghuwa iyadoo markaas la qaadatay kulan isbarasho iyo isxogwaraysi ku aadan sidii Soomaaliya loogu faa'iideyn lahaa shaqada garsoorka. sidoo kale gudoomiyaha ayaa warbixin laga siiyey kiiskii badda Soomaaliya iyo Kenya oo baarlamaanku meel gaarka ay diideen xilligii uu guddoonka ahaa iyo qaabka ay u shaqeyso maxkamadda iyo taariikhdeedaba. ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha shacabka ayaa madaxweynaha maxkamadda ICJ ugu mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey ayaa xusay in maxkamadda ay gacan ka geysto sidii loo tayan lahaa adeegyada garsoorka dalka oo Soomaaliya meelaha ugu musuqmaasuq badan iyo cadaalad darrada ugu weyn ay tahay meelaha ay ka jiraan loona baahan yahay in laga saxo. dad Soomaaliyeed oo qabeelaad ka mid ah ayaa dhanka garsoorka ku dulma ayagoona dhibaatooyin kale ay kala kulmaan beelaha isku sheega inay yihiin kuwa markaas laandheerayaasha ah. wararka arrimaha caalamka waxaa ugu waaweyn Ruushka ayaa weli duqeybihiisii wada oo dhanka cirka ah ee Ukraine iyadoo gantaalo cusub lagu weerarayo magaalooyin waaweyn dalkaasi ka mid ah. Ukrainiyiintu ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan wax walba oo kaga imaanaya dhanka Ukraine. madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay iska caabiyeen weerarada dhanka cirka ay kaga yimid madaxweynaha dalka Ruushka tiimkiisa iyo xulfadiisaba. wararkii waaweyn ee Soomaaliya caalamkan waa naga inta halkan kala socoteen daawada. haddii aad nagu subscribe noo soo gambalkan afuro noo sii share garay saaxiibada halkaas joogaan nabadgelyo.